بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم دمان أصحابتك وحرم برتان بلشو وهبي النما سبتي تاريخنا إيتا سقالك بشي شناد لبدا كون إلا باتن نكسو دوادا وربحنتي وقودن بيسي عذرك كوفيد-19 الدالك الصومالي وزيرك وزارة عافيماتك iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwe Fawziya Abikar ayaa waxa ay soo saartay warbixintii ugu dambeysay ee xaaladda cudurka COVID-19 warbixintan ayaa waxa ay sheegaysaa in dadka ku soo kordhay cudurkan ay gaarayaan 69 qofood 48 kamid ah waa rag 21 kamid ah waa dumar guud ahaan tirada dadka cudurkan uu ku dhacay ayaa waxa ay gaartay 997 guud ahaan tirada dadka cudurkan u dhintay ayaa waxa ay gaartay 48 guud ahaan tirada dadka cudurkan ka soo kabtay ayaa waxa ay gaarayaan 110 wasiirka wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada Marwe Fawziya Abikar ayaa maalin walba waxa ay soo saartaa fiidnimada habeenka warbixintii ugu dambeysay ee cudurka COVID-19 si loo gaarsiiyo dadweynaha Soomaaliyeed digniin caabuqa COVID-19 ama coronavirus haatan waxa uu soo gaaray dalkeena Soomaaliya oo saameyn baan uu ku hayo haddaba muwaadin ka hortaga caabuqan COVID-19 oo isticmaal talooyinka ay ku siinayaan wasaaradda caafimaadka